waa waddan madax bannaan oo magaalo dhexdeeda ku yaala. Waa waddanka ugu yar caalamka. Waxaa lagu maamulaa diinta Kaatooliga. Wax carruur ah kuma dhashaan waddankan. Guurkuna waa mid aan xitaa la soo hadal qaadin. Wax iskuul ah kuma yaalaan. Sidoo kalena waa hooyga farshaxanka iyo sanamyada. Baaxadda dhulkeedu waxa uu ka yar yahay 1 kiiloomitir. Waxay kaliya kugu qaadanaysaa 40 daqiiqo si aad ugu soo wareegto waddankan. Soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal aan uga hadlayno waddanka adduunka ugu yar ahna madaxa maamula diinta Kaatooliga. Vatican waa waddan madax bannaan ahna waddanka ugu yar adduunka. Midda ugu yaabka badan ayaa ah in waddankan uu ku dhex yaalo bartamaha magaalada Roma ee caasimadda Talyaaniga. Sababta keentay in waddankan uu ku dhex samaysmo magaaladan ayaa waxay u laabanaysaa taariikhdeeda. Sanadka markuu ahaa 1506, wadaadada diinta Kaatooliga ayaa bilaabay inay sameeyaan kaniisadda adduunka ugu weyn ayna ka dhex dhisaan bartamaha magaalada Roma. Kaniisaddan ayaa waxaa la dhammaystiray sanadka markuu ahaa 1626. Dhismaheeda ayaa waxa uu socday wax ka badan 1 qarni. Intaa kadib, kaniisaddii ayaa waxaa hareeraheeda laga dhisay derbi aad u weyn, waxayna derbigan ugu magac dareen Vatican, waana magaca uu waddankan xilligan sito. Sidoo kale, kaniisaddan waxa ay leedahay dowlad lagu magacaabo The Holy See, waana dowladda caalamiga ah ee kaniisaddan. Dowladdan iyo waddanka Vatican waxaa xukuma hal baadiri. Marka laga yimaado taariikhdeeda, waxa ay leedahay sharciyo aad uga duwan sharciyada ay leeyihiin waddamada kale. Sharciyadaas ayaa waxaa ka mid ah inaysan gudaha waddankan ay ku dhalan wax carruur ah. Sidoo kalena, waddankan ma lahan wax isbitaal ah. Wixii daawo iyo caafimaad u baahanna waxay aadaan dibadda waddankan. Marka la joogo gudaha waddankan, guurku waa ka xaaraam sababo diimeed awgeed, maadaama gudaha waddankan aysan carruur ku dhalan. Sidoo kalena, guurku uu xaaraam ka yahay. Wax shacab oo u dhashay waddankan ma lahan. Kaliya dadka markaa ka shaqeeya ayaa ah shacabka waddankan. Markay shaqadooda u dhammaatana, waa ay iskaga baxaan waddankan. Sidoo kale, waddankan ayaa ah goobta lagu maamulo diinta Kaatooliga, maadaama ay ku taalo kaniisadda ugu weyn adduunka. Sidoo kale, waddankan ayaa waxa uu martigeliyaa farshaxanada iyo sanamyada. Waxaad gudaha waddankan ka helaysaa farshaxano kala duwan oo ay sawireen dadkii hore, iyo sidoo kale waxaad ka helaysaa sanamyada qaar ka mid ah dadkii soo maamuli jiray waddankan. Gudaha waddankan ayaa waxaa ku taala goob aad loo ilaaliyo oo lagu magacaabo The Vatican Secret Archives, waxaana gudaheeda yaala buugaag ilaa hadda aan laga salgaarin waxyaabaha ku qoran. Qaar ka mid ah baadiriyaasha ayaa sheegay in buugaagtan ay yihiin buugaag diimeed. Waxyaabaha ka dhex dhaca gudaha waddankan ayaa waxaa ka mid ah marka la dooranayo baadiri xukuma waddanka, ayaa waxaa hareeraha waddanka lagu arkaa qiiq madow ah oo ka micno ah in aan weli la dooran baadirigii xukumi lahaa waddanka. Halka marka la doortana baadiriga ay shidaan qiiq caddaan ah oo ay ka sameeyeen waxyaabooyin kiimika ah. Waddankan ma lahan wax ciidan ah. Kaliya baadiriga ayaa waxa uu leeyahay ciidamo u qaas ah oo ka ilaaliya dhibaatooyinka soo wajihi kara. Ciidamadaas ayaa waxa ay tiro ahaan gaaraan ilaa 135 askari. Waxa ugu badan ee gudaha waddankan laga qabto ayaa ah waxyaabo la xiriira diinta Kaatooliga. Intaas waxay ahaayeen xaqiiqooyin ku saabsan waddanka adduunka ugu yar kuna yaala magaalo gudaheeda. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.